goboleedka IGAD ayaa maanta aqoon isweydaarsi 3 cisho socon doona uga furmay Hotel Sheraton ee magaalada Djibouti. Aqoon isweydaarsigan oo ujeedadiisu ahayd sidii kalluumaysiga sharci darrada looga ciribtiri lahaa xeebaha urur goboleedka IGAD. Aqoon isweydaarsigan waxaa iska kaashaday IGAD iyo Midowga Afrika, waxaana ka soo qayb galay wadamada labada Suudaan, Djibouti, Kenya, Somaliland, Soomaaliya iyo Puntland. waxa iyaguna si mugle uga soo qayb galay hay'adda Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa oo qaabilsan beeraha iyo quudka ee loo yaqaan FAO. Aqoon isweydaarsigan ayaa waxyaabihii lagaga hadlay waxaa ka mid ahaa ilaalinta ukuurgalka iyo korjoogeynta xeebaha wadamada IGAD, waxaanu ahaa mid ka qayb galayaashu ay isku dhaafsanayaan khibradaha kala duwan iyo aaladaha shaqo ee ay cid waliba isticmaasho. waxaa la filayaa in aqoon isweydaarsigan oo la soo gabagabayn doono maalinta Khamiista uu ka soo bixi doono warmurtiyeed gundhigiisu noqon doono in la sameeyo qorshe hawleed lagu ilaaliyo xeebaha IGAD oo ay ka midaysan yihiin xubnuhu. waxaanu waraysi la yeelanay Fuaad Cabdisalaan Xasan, agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga Somaliland, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa hogaaminayay wafdi ka yimid Somaliland oo ay iskugu jireen wasaaradda kalluumaysiga iyo ciidanka badda Somaliland. halkan oo markaa shalay aan u nimi kulankan ama kulan aqooneedkan ay iskugu yimaadeen wadamada IGAD, kaasoo ay markaa kaga hadlayeen hawshan markaa kalluumaysiga iyo sidii loo xoojin lahaa ama looga hortagi lahaa waxaa la yiraahdo IUU ama kalluunka sharci darrada ah guud ahaan marka la soo ururiyo. hawshaas markaa halkan aan u nimi. madaxa waaxda kalluumaysiga Djibouti Axmed Daraar Jibriil oo arrinta ka hadlayana waa kan. IGAD oo waxay isku yeedhay wadanada ku jira IGAD-ka oo bariyahan waa ogtiin badaheena ha noqoto badda Soomaaliya, badda Somaliland, Puntland, waxaa ku batay dadka ka kalluumaysiga kuwa sharci ahayn duuniya badan oo bilaa sharciga magaran. marka maanta waxaan isku imanay si aan ugu sheekaysan lahayn sidee loo qorsheyn lahaa si aan loo dagaaltamno. waa taa muhiimka marka waa run way jiraan. anagu wali waxaan la seexanay madhaweyd Puntland iyo Somaliland 2 sano ka horteed xidhiidh xagga kalluumaysiga oo aan isku weydaarsan lahayn wixii haddaan helno magaran information ama dhawaa oo aan la dagaaltami lahayn dadka doonaya kalluumaysiga oo sharciga haysan. agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Puntland Cali Xirsi oo isna ka hadlaya aqoon isweydaarsigan ayaa waxa uu yiri wuxuu ku saabsan yahay arrimaha la xiriira sidii loola socon lahaa, loo ilaalin lahaa, loo kormeeri lahaa, muxuu ahaayay loogana hortagi lahaa kalluumaysiga sharci darrada oo gayigeena ka socda gobolkan muxuu ahaayay IGAD ka socda oo dhan. marka arrintaasaan u nimid si loo xoojin lahaa hay'adaha ku lug leh iskaashigooda iyo wada shaqayntooda. ujeedada halkan loo yimid taa weeye horta ugu weyn. waxaan filaynaa 3 bari ee halkan joogno inaanu si fiican aanu u eegi doono, iskula qaadaa dhigi doono, macluumaad horta isu dhaafsan doono. qolo walbaba dhinaca kale waxa ay challenges iyo maaragtay caqabada ay haysta sidii kuwa kale ay ula kaashan lahayd oo maaragtay ay uga caawin karaan iyo khibrad in la isdhaafsado. intaas horta ugu muhiimsan. kadibna wada shaqayn in la helo oo sidii la isu kaashan lahaa oo loola wada dagaalami lahaa muxuu ahaayay kalluumaysiga sharci darrada waxaana la yiraahdo IUU oo ah muxuu ahaayay illegal, unreported and unregulated fishing. علي أحمد رابع علي سيو صاب TV Djibouti.